السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنية مروين بسول هذا كسول هذا شلن كني صوت الحس ويدين سو قدبينية معلومات كان بريها كان الإسلام الأحمر كان أربي ترى أما في فريق عرتن عبد القادر عرتن واتي aynu hore uga soo sheekeynay ninka dhalinyarada ah ee aadka u soo dadaalay ee runtii magaca iyo maamuuska samaystay ee aanay dowladna ka caawinin cid kalena ka caawinin isagu iskii isu soo saaray ninkan taariikhdiisa hore wataan uga soo sheekeeyey nin isagu iskii siminaarada FIFA ay qabanayso isagu uu isu soo saaray oo mataqaanaa isagu self study iskeliye way horta ninkalo nin maanta iyo dowlad maanta u abaal sheeganaysa oranaysa ninkanu cidaasoo ka socda ama cidaasaa ka dambaysa ama cidaasaa soo dhistay horta ma jiro runtii halkaasaan in yara ifinaya dad badan baa warar isla dhaafdhaafaya warkuna wax weeye wax kasta wuu noqon karaa laakiin muhiimaddaa la eegtaa ninka kan markuu ka degay Maraykan uu ka degay markiiba waa loo yeedhay xarumaha dimi baarista iyo amniga ayaa horta gacanta ku dhigay su'aalo badan baa la weydiiyey haddaba ku jirtaa reetro way ku jirtaa BBC way ku jirtaa meel kastoo ka helaysaan isaga xitaa wuu warraba su'aalo badan oo qof intuu qof yahay mas-uul la weydiiyo ayaa horta la weydiiyey dadkeennu waa caadifadu joog ninkan waa la cunsuriyeeday islaamnimada lagu diiday kanaa loo diiday soomaalinimada loo diiday war horta wax weeye dadkeena baxaraan iyagu iskelin horta ma galaan waxa weeye inaad qaadatid qaladkaaga way fiicanta waxaad moodaa in laga lexleexanayo qaladka ninkaas qalad weyn baa la geliyey anigoo sa iigu muuqato waa fikraddeeda waayo ninkanu nin shicib buu ahaa nin sportsuu ahaa ninaan siyaasad ku jirin buu ahaa ninaan weligii qori qaadan buu ahaa social mediasa xitaa haddii la eego weligii isagoo hadal xun leh lama helayo nin sports oo caadiya buu ahaa nin buu ahaa mataqaanaa inta uu qof bini aadani ka maran yahay siyaasad ka maran nin buu ahaa waqti geliyey sportiska iyo cayaaraha baa gurankiisa oo dhan marka la soo baadho horta saas weeye ninka nin weligii siyaasad galayna maaha okay haddaba arrin wax weeye sabta xaga ka qurunta inankan dhib aan dowladda Soomaaliya ahayn horta uma geysan waa aniga say igu muuqato wax weeye waxa la yidhi faraska xariga wax looga baday inuu ord ka dheereeyo inankan waxaa dhacday baasaboor Soomaali buu haystay baasaboor Soomaali ordinary passport waxa la helaa jira oo baasaboorka shacabka dadka caadiga ah ee muwaadiniintu ay qaataan ee ordinary ah passport ayuu horta ninkan haystay oo muwaadiniinta ah waa loogu soo diiday fiisihi waxaa lagu yidhi niyahow waxaad samaysaa baasaboorka Soomaaliga Maraykan waa laga joojiyey iska bax reject baa laga siiyey okay halkii uu solution kale iyo macamiil kale iyo hawl adduunku demaha kaliya haddii wax lagu diido wax option badan baa jira ma garanaysaa surface official passport baa jira oo dadka mataqaana shaqaalaha iyo la siiyo oo gooniya
waxaa jira waxyaabo badan oo kale FIFA laftigeeda inuu la galagalaysto howlo badan inuu isku dubarito opshano badan baa jiray tii lama samaynine ninkii waxa loo dhiibay diplomatic passport baa la siiyey diplomatic passport yaa qaata haddaba diplomatic passport waxaa qaata dee nin u shaqeeya dowladda baa diplomatic passport qaata diplomatic passport yaa qaata nin dowladda u shaqeeya qaata laakiin nin shacabi oo sports horta ma qaato diplomatic passport ordinary passport wax leedahay jira hadda ma jeedaa waxaa jira selfish official passport wax leedahay saddexdaas dadka ugu badan passportada adduunka ay isticmaalaan inankii qortu waxa loo geliyey haddaba fiirso waxa qortu loo geliyey diplomatic passport kii hore rejected laga soo siiyey ordinary passport buu ahaa oo passportka dadka shacabka ah inankii markaa muxuu ku baxay inuu yahay nin diblomaasi ah oo dowlad ka socda marka hore xaguu socday nin sportsa oo civilian buu ahaa oo shacaba oo ka socda inuu ka noqdo referee World Cup 2026 waxaway marka horta waxa in moogtay waxa loo fiirsaa fiican anigoo fikirkeyga aan cabirkeyga aan qabo warkiisi waan dhageystay ninka kan waxa loola macaamilay sidii qof siyaasi oo kale ah hadalada la weydiiyey xitaa waxa ku jira waa weynka oo dhan waxa de qof la weydiiyo waa qof siyaasad lugta kula jira marka inanka anigu waxaan leeyahay waxa duway nimanka baasaboorka diplomacy baasaboorka siiyey horta halkaas inanku ka duway midda kale dowlad weyn marka aad la macaamilaysid ee aad wax abalay garaysid ee baasaboor aad la tagtid ee baasaboorka wax lagu soo diido this already waxaaga waa la hayaa haddana mid kale soo qaadato waxaweye waa qasab adduunkuna qasab iyo de wax mataqaanaa inuu qofku ku hormaro wax qasaba oo degdeg wax kasta uu helo maaha inuu markaa u arkay baasaboorkiisii oo ordinary baasaboorkiisii loo diiday inuu arrinta dib uga fadhiistaaba ahayd inuu sameeyaba ahayd consultant inuu FIFA dib u waco ahayd hadda markiiba hadda FIFA jaziira xataa waxay soo geliyeen isla markiiba go'aanka ay dowladdu qaatay waanu qaadan degdeg maba labalabaynba ya markii muxuu taagan yahay ninkan fitigii mar waaye meeshii wax soo gashay baarnoy oo shaki wax soo galay marka waxa weeye anigu mabda'ayga saan qabo waxa weeye ninkaas waxa leexiyey oo baxarkan geliyey waa baasaboorkan uu qaatay diplomacy passport hadduu ordinarkiisii ku adkaysan lahaa oo xal kale la dooni lahaa ama uu iska bedeyn lahaaba fashilkan ma dhacinba dadkeenu waxay qaadaan waxa weeye waa caadifada xool waa la diidayaay kana loo diidayaay oo yaa ku jeclaa adduunka hadda jeceli ma jiroba adduunka hadda qof jecel iyo dowlad jecel iyo dunida hadda waa la isu bareeray ma garanaysaa marka waxa weeye xaqiiqada yaan laga leexani waxaad isu qiyaastaan adinku ninkan wuxuu u socday iyo wax la weydiiyey bal hadda eg 19 degree bay arrintan wareegtay maxaa wareejiyey ninkan nin shacab ahaa nin buu ahaa referee nin sports buu ahaa nin siyaasad shaqo kula buu ahaa qolkii dambi baarista ee siyaasiyiinta iyo howlaha saalaala galay markii waaweynka waa la weydiiyey miligii kuma shaqaysan siyaasad ma gelin ninkaa isagoo soo dhisay buu ahaa nin dowladii soo dhistay oo xitaa ay wixiisan ka soo bixisay oo aqoontiisa soo kabtay oo dowladu dirtay oo ma ahayn hadda ma ujeedaa marka waxa weeye yaan dadka loo dirin oo shacabka iyo bini'aadamka yaan majrahaabin waxa weeye wixii dhacay anigu waxaan u qabaa ninkaas nimanka baasaboorka diblomaasiga siiyey iyadoo applicationkiisa hore oo rejectii meesha yaallo
u bedelay ee dulmaasiga ka dhigay ninka sportska ka dhigay dulmaasiga ka dhigay nimankaasaa waddada ninka ka leexiyey nimankaas weeye nimanka mataqaana geliyey ninkan beerta geliyey wax kale maaha waayo su-aalaha la weydiiyey iyo wuxuu u socday isma wada hada marka waddada waxa ka leexiyey waa baasaboorkan ninka baasaboorkan la siiyey ayaa qalada waayo waa nin shiciba oo dhanna baasaboor buu xaq u lahaa wuu haystay waa loogu soo diiday hadda ma garata wax kale loogu sheekeeyey marka caawana wuxuu joogaa turkiya oo arbaco ah berrina wuxuu tegayaa insha allah taala muqdisho ka degayaa marka dadka yaan la jarahaabin su-aalaha la weydiiyey iyo kuwa uu u socday waxa sameeya maahaba hadda xitaa jasiiro gal fifa waxay tiri go-aanka waa la qaadanay dowladda xitaa option kale samayn lahaayeen facility samayn lahaayeen oo ama mexico aan lahayn haddii maraykan loo diiday mexico ha la geeyaa loolan lahaa canada ha la geeyaa loolan lahaa kuwa kale ha ka noqdo referee baa loolan lahaa waa arrin isku xidhan marka dadka yaa lama jarahaabin ninka kan waxa waalay waxa weeye ee qaladka u weyn uu ka galay waxa weeye waa baasaboorka diblomaasiga ee loo dhiibay ee aan ahayn shaqadiisii iyo professionaalkiisii iyo wuxuu shaqo ku leeyahay taas weeye waa janankiinnii soo dalxiis oo idin leh jananka subscriptga inoo saara mudane marweynba kuna soo dhawaada barnaamijyo badan baa idiin soo wadnaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu